xaflad aad u ballaaran isla markaana ay ku qalin jabinayeen arday dhammaysteen barashada Qur'aanka Kariimka ayaa lagu qabtay madrasatu Naciim oo ku taala xaafadda Caymiska degmada Yaaqshiid ee magaalada tan Muqdisho. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galeen mashaayikh, waalidiin, marti sharaf iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyn waxaa munaasabada lagu daahfuray kalaamka Alle iyo saliga Nabiga calayhi salaatu wasalaam. موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوا إليك وجاعلوه من المرسلين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي. الهم عليك الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. السلام عليك الله يا حبيب قد لبست ثوب عيد بعد تلفيق الرقاع أنت في الكل جميل وجمال يا مطاع. يا رسول سلام عليك الله ورضعنا ثدي وصلي قبل أيام الرضاع واصبلي ستر علينا يا مجيبا كل داعي. sidoo kale waxaa goobta kalimooyin qiimo leh ka jeediyeen mashaaikhdii ka soo qayb galeen xafladda. أولا أوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته. ثانيا waxaan ilaahay uga xamdinaynaa isku keenay majliska sharafta badan oo ilaahay diinkiisa lagu nashriyo gaar ahaan quraanka kariimka ee masjidkii iyo madrasadii iska saaran ah oo haddana galabtay saaka ay ku baagan tahay xaflad qalin jabin ee quraanka kariimka ah arday ka takharujeen oo soo marka qalin dhamaystay xafladoodii iyo farxadoodii aanu kala soo qayb galnay walillahi alxamdu ala dalik. inta kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wax badan oo aad u badan baa ilaahay quraankiisa fadilay oo kalaam saa'iril makhluuqaat uu ka fadilay tafdiil aan la soo koobi karin. waxaa halkan lagu hayaana waa ilaahay kalaamkiisii waanu ku wada faraxsannahay qalin jabinta ardaydaas insha Allah ta'ala. waan kelimo kale yahay fadaaisha quraanka kariimka ah. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri dalika kaas alkitaabu weeye waa kitaabka aad u fadliga badan hudan wuxuu yiri dalika alkitaabu la rayba fihi وحشكيهنا كما جيران هدى للمتقين وحنا هنون وياهي ددك متقين تا ايو هنون وياهي متقين تبا الهي سفيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخر الآيات. مؤمنين تصفات كاسلة
ayaa wuxuu yiri quraanku hanuun u yahay aakhirka wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u yiri waxa weeyaan kuwaasi waa kuwa liibaanay ulaa'ika humul muflixuun kuwa liibaanay way kuwaasi marka muuminiinta ah oo liibaanay buu horta quraanku wuxuu u yahay hanuun u yahay sidaa darteeda ardayda quraanka maanta akhrisay ee isagoo radbi ah oo dari ah oo sidii marka uu soo dagay u akhriyay sida garashadeedii ay ahayd waxaan leenahay lisaankooda Allah barakeeyo dalabadaas Allah lisaankooda barakeeyo dadkii ku soo barayna Allah juhdigooda ka amal mariyo waxaan leenahay marka quraanka fadligiisa waxa fadli ugu filan inuu yahay kalaamullah uusan kalaamul bashar ahayn nabigeena alayhi salatu wasalaam wuxuu ku sheegay inuu yahay qofka ku mashquulsan khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama kan idinku khayrka badan waa kan quraanka bartay dadkana barayo waxa kale fadli ugu filan qofka xaafidka quraanka xafidsan inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala maalinka qiyaamaha uu jannada ku dhihi doono iqra wartaqi ama warqa warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha sida nabigeenu sheegay alayhi salatu wasalaam yuqaalu li saahibil qur'aani iqra ayaa loo dhihi doonaa qofka saaxibul qur'aanka waxa loo dhihi doonaa iqra quraanka akhri markii jannada manzilkeedana kor marka meesha manzilkaagu wuxuu noqonayaa quraankii marka tartiilkii loogu talagalay oo akhrisid tartiibna u socotid manzilkaagu waa meesha ugu dambayso quraanku kaaga dhamaado halkaas aad dagaysaa Raafici Maxamuud Xasan Hayat Islam TV Muqdisho